السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan janna galayaal waxaan isla fiiri doonaa lacagta AUD USD 1 hour chart. sidaan ka aragno lacagtan jihadeeda short term ka waa bullish, also long term ka bullish tahay, inkastoo aan wali confirmation buuxo oo clear aan ka haysan oo structure kan weyn uu noqon karo falaad. This one uu falaad noqon karo noocan oo kale waxaan socda lugti shanaad ee falaadka oo sidii inay noqoto kadib suuqa uu soo daato ay possible tahay, laakiin uma rajeynayno insha Allah. sidaan u jeedno 1 September waa ay isdhiibeen, taasoo macquul ah suuqa inuu acceleration badan uu kor u sameeyo oo awsi strong noqoto. oo dollarku daciifnimo ka rajeynayay waa ogtihiin sidaan weekly analysis ka ku soo eegnay oo ku soo falaqeynay. marka insha Allah more upside aan ka rajeynaynaa AUD USD as long ay taagan yihiin wave 2 oo minor ah. 13 November intay taagan yihiin suuqa more bullish noqon doona insha Allah. ayadoo qoraal ah oo intii ku jirta oo article ah oo badan faahfaahin dheer leh insha Allah soo akhriso. waxaan rajeynaynaa as long ay ka korayso wave 2 oo minor ah suuqan more upside inaan rajeynayno inuu inoo sameeyo extension fara badan. wave 3 ayaa on the way ah. minutes kan ayaan rajeynaynaa in ay samaysmaan insha Allah. minutes kan ayaan ka rajeynaynaa inay more extended noqdaan. kale waa 1 hour chart AUD USD ayagoo kala duwan in ka badan 17 lacagood ayaan kusoo kafargaraynaa offset-ka degree-dooda kala duwan sida 1 hour ka jihadiisa, 4 hour ka daily-ga, weekly-ga oo qaybahan kala duwan aad ka helaysaa insha Allah. ayagoo iskugu jiraan forex-ki iyo commodities-ki. qaybtan broga iyo premium-ka waa ka helaysaa charts-ka way kala badan yihiin kaliya halka premium-ku la trend room leeyahay. insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan more upside ka helno AUD USD. haddaan muuqaalka weyn eegno daily-ga markaan joogno this one suuqa qiimihiisu wuxuu marayaa 0.74 lacagta awsi dollarka marka hadda la sarifayo. sida aragno meeshaas waxa ugu dambeysay Agosto 18. insha Allah intaan in ka sareysa u rajeynaynaa dama dollar daciifnimo badan aan ka rajeynayno sida meeshan inooga muuqata. cycle-ka from March inuu inta ku dhamaaday correction-kan uu yahay pullback-ti ama sixitaankii cycle-kan dhan oo suuqu more extended ugu baahan yahay. ugu yaraan short term-ka targetkiisu wuxuu noqonayaa insha Allah sidaan ka rajeynayno from 2 November to 9 November. this one short term-ka ilaa 0.75 in la geeyaan rajeynayna insha Allah. inta uu ka sii dheeraa karaa maadaama waxaan noo socday ay wave 3 of 3 yihiin, laakiin short term ku waa ilaa inta. hadda waxa ugu dhiman minimum wax badan oo ma dhimna waa 200 oo bid adiga waxaan 200 bid dhammaan insha Allah. after this suuqa waxaan ka rajeynaynaa inuu more extended sii noqdo. duu meeshan gaaro suuqa oo si fiican u soo naso waaya taas macnaheedu waxay tahay confirmation fiican inaan ka heli doono more upside inuu suuqa sii aadi doono insha Allah. marka kilibka yaraa aan ugu talgalay AUD USD intaas ayaan kusoo koobaya insha Allah. waxayna balana fiidiyowga xiga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.